يا إسكال المسؤولية قبشة قريه وكله كرنتها معلومة صادة في آدم أنت سلوك عبناي مش شركة دي إن كرنتها إسكاله بس ضد قريه وكبرتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والآخرة والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى ما هتسكاله goobjoog iyo daawadayaasha goobjoog iyo goobjoogayaasha hadda programka nagala qayb qaadanaya shirkadaha aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan rabaa intaan mas'uuliyadda u gudbin horta aynu isla fahamno maxaa keena gubashada waxay ka timaadaa maogtahay mas'uuliyadda waxa ka horeysa gubashada marka hore waxay ka imaanaysaa. waxaan rabaa inaan wax yar si dhiibaan isla fahno waxaad ogtihiin haddii aan Englishka ma jeceli laakiin haddaan erayo English isticmaalo iga raali ahaado waxa laga yaabaa inaan af Soomaali markii soo qaban waayo micnaheedu ma af Soomaaliga ma aqaano waan aqaanaa. waxaa jirta marka qalabka dalka la keenayo mas'uuliyaduhu qaarna qof bay ku kooban yihiin qaarna waa qaar la wadaago. in koronto dalka la geliyo oo guryaha la geliyo waa mas'uuliyad ka dhaxaysa ganacsatada dadka guryaha iskale shirkadaha iyo dawladda intaas oo qof bay ka dhaxaysaa halkii guri koronto la gelinayo. qalabka marka dibadda laga keenayo nin ganacsatada baa soo gada waxay ahayd markuu dekada soo istaago in qalabka laga fiiriyo oo la yiraahdo qalabkan horta dalka ma la soo gelin karaa wali halkaa meenan gaarin. ganacsataduna waxay ka fakaraan sidee baad lacag uga samaynaysaa sababtoo waxa laga yaabaaba ayagoon dadkooda ku xumaynaynin inaysan waxaan aqoon u lahayn. koow alaabta la keenay laba guriga marka la dhisayo waxaan ka hadlayaa wada fact kulligiina waa waxaad wada ogtihiin hadhow mas'uuliyadda u tagi doonaa. guriga marka la dhisayo ninbaa contract ku qaatay guriga nin kastoo contractor wuxuu wataa wheel electrician oo ay ma laga yaabaa inay wax isu yihiin line to line filo to filo sida la soo xiro wiilkan yaqaanaa waxa laga yaabaa inuusan weligii korontada iskuul gelin. intiina halka fadhida qof kastoo guriga degan tahay gadaal bal hadda maskaxda intaad ka shaqaysiiso guriga degan tahay single line diagram ama balaankii korontada lagu geliyay ma leeyahay. I don't think la helayo ma jirto inta badan ma badna guriga korontada markii la geliyay sax looma gelinin qalabkii aan sax ahayn qofkii kaliya aan sax ahayn. adduunka marka guriga koronto la geliyo certificate baa la siiyaa waxa la yiraahdaa gurigan koronto waa lagu sii dayn karaa ayadan cid certificate ma siinin. hadda anu shirkadaha u hadli maayo waxaan u hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee waxaan daawanaya u hadlayaa Muqdishona ka hadli maayo Soomaaliya oo dhan ma la hadlayaa. guriga marka koronto la gelinayo waxay ahayd inta la tago in check lagu sameeyo guriga intuu dhan yahay min bidaaya ilaa nihaaya. xagee see loogu samayn karaa check inuu guriga warqadi taalo meesha oo qofka koronto ku sideen uu yiraahdo gurigan filada ku jirta waa nooca intaas kalarkaas ay leedahay halkaas ay tagtaa plan. qoliyaha korontada bixiyaana iyaga is eriyada shirkadda kale yuusan gurigan kaaga hormarin iyo israadaa. okay gurigii marka hadaba mas'uuliyadii dawladda iyo tii qofkii soo qaaday fiilada keenay iyo kii guriga geliyay iyo kii korontada ku sii daayay intooduba meel bay wax ka misgareeyeen. mas'uuliyadda hadaba yaa iskale anu mas'uuliyadda judge ma ahi oo hadda wax kala xukumin maayo laakiin orfiga korontada inta aan ka aqaano iyo qaabka ay u shaqeyso inta aan ka aqaano mas'uuliyadda awalan wa qabla kulli shay waxa iskale ninkii guriga dhistay ee hantidiisa geliyo waxa laga yaabaa hadda niman darisnahay magaciisa micna aan sheegay samayn mayso guri buu dhistay idhow $340,000 baa la geliyay waxaan idin sheegayna waa run $340,000 baa la geliyay. markii la damcay korontada lagu dhameystiray la damcay in la shido laambadii gudaha ku jirtay marka la taabto waxa qaylinaya gambalaalkii guriga laga soo geli lahaa qaylinaya sababtu waa maxay fiilooyin baa la isku xirxiray marka warka waan dheereeyay. mas'uuliyadda waxa iskale qofka guriga dhisanaya inuu gurigiisa iska fiiriyo qalabka uu gelinayaa qalab sax ma yahay qofka korontada u geliyo qof korontada yaqaan ma yahay. shirkadda korontada markay timaado waxay arkaysaa saacad halka ku xiran gurigu waa shub fiilada la geliyo waa noocee xataa ninka guriga dhistay ma yaqaano. marka problemkani waa problem collective dad fara badan baa xanuunkan wada keenay oo dawlad leh oo ganacsato leh oo ninka guriga dhisanaya leh. marka mas'uuliyaddina waa collective laakiin specifically waxa gaar uga dhacaysaa dadka guryaha dhisanaya. hal waxna waa idin ku darayaa hal arrin ma idin ku daray warka waan dheeray raali ahaada waxaan ku darayaa guriga haddii koronto sax la geliyo oo qaabkii saxda loo geliyo
oo guriga airtan loo sameeyo airtanku waa teera baasha tiraan dhulka ciida loogu aaso oo qalabkuna uu wada quality yahay gurigii gubtay lacag sana bixinay ma jirto weligii ma gubanay gurigaas sababta uu gubtay maxay tahay wuxuu u gubtay qalabka ku jirana sax ma aha labo ogaadana oo korontadu meel kasta kama guro dabku meel kasta kama kaco wuxuu ka kacaa meelaha fiilada la saga keenay bareesada laambadaha fiilo is haysato oo socoto kaligeed inta 99% of the time ma gubato marka warkii waan dheereeyay mas'uuliyadda dadka guryaha dhisanaya guryahooda waxa ay ku dhisanayaan iska ilaaliyeen xataa haddaad kiraysto tahay guriga aad kiraysanaysaa carruurtaada iyo naftaada baad geenaysaa iska hubi gurigana guri saxa si saxa korontada ugu jirta ma tahay waxa laga yaabaa dadka qaar inay degan yihiin gurigiisa aad bari xilligu ka tagay la dhisay oo laga yaabay in 1980 1970 korontada la geliyay korontada waxa lagu tiray after 20 years in la bedelo gurigii baa iska dhex joogtay hadda maalin dhowto dad baa guriga jooga ku dumay marka waxa la rabaa waxana waa wax shirkadahan yaan la soo fiirinayna yaan laga dhigin case-ka shabeel bariyaha iglaayay ayaan wax collective wax naga wada dhixiyay lagu baraarugusanaado aad wad maas waxaan rabaa inaan ku daro horta marka koowaad su'aashii aan weydiisay ahayd mas'uuliyadda iyo askar inta mas'uuliyadda la gaarin horta waxaa muhiim in la ogaado dab hadduu kaco waxyaabaha dabka dhaliya korontada wadbars maxay ka tahay waxaan rabnaa halkow inaan isku sheegno horta guri walbo gubta xaqiiqdiisa waa ognahay waa tagnaa waa ka warqabnaa dadka ugu horeeya taga waxaa ka mid ah shirkadaha korontada waxyaabaha dab ka kaco maantay magaalada gubashada ka dhacda korontadu waxa ay sababtaa ama dab wax ka yimid ama ka dhashay ama fiilo dhalaashay ama wax lamida ka dhashay waa wax aad u yar waxaa jira oo aan ognahay guri walba oo gubta inta badan 90% waa guri ilmo looga tagay waxyaabaha ugu yaab badan waxa guri walba oo gubta marka tagto waa guri ilmo looga tagay ama kor looga xiray waxyaabaha cajiibka ah aan aragnay kamid tahay waxa kaloo jira xilliyada qaar marka la gaaro xil rabaadka kaleeto inta burjiko la qaado guri la gelay kanicada iga qaaci la yiraahdo burjiko guri la dhigo markay gubtanayna korontada gubtanayna waa aragnay waxaan kaloo aragnay oo ayadana jirta waxyaabaha ugu asna ugu badan ah waaga hore dabka waa la kala doonan jiray marka la yiraahdo dabka loo baahdo cid darsiga soo qaada la dhigi jiray maanta dabka lama kala doonto oo dadku waxay isticmaalaan gas iyo technology kala isticmaalaan marka si dabka loo shito waxa la isticmaalaa jinsiga sigaarka lagu shidan jiray ayaa guryaha la geystaa dadka qaarkiis inta badan si ay dabka ugu shitaan jinsiga marka guriga la dhigo ilmana guriga looga tago waxa dhacaysa cunugu inuu joodar ku qabto deeha ku qabto meel ku qabto waxyaabaha ugu badan oo keenay kamid tahay marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore inaan u sheego ay raado guryaha ay la dhigaya jinsigarada ee looga tagaayo ee waliba iyadoo ilmo joogan laga tagaayo meesha mas'uuliyad u baahan ka dhacda hada u soo laabtay dhinaca korontada korontadu inta iska gubato iskama kacdo waxay korontadu kamid tahay waxyaabaha dabka ah ee guriga yaala guriga burjika taala gaas yaala koronta ku jirta midiya taala intaas oo shay waxa disha guriga taala marka korontada aan fiirino hadii aad adiga fiiladii aad saarto culays ka badan waxa imaanaysa in fiiladii inta dhalaasho ay gubato mas'uuliyadda waxa iska leh guriga iska leh marka la yiraahdo shayga tayaxan soo qaado oo shay aan xamili karin dabki la yiraahdo hal la geliyo wax lagu isticmaalo iyadana waxa ka dhalanaysa mas'uuliyadda ka dhalanaysa halkaas waxaan kaloo inaan ku daro shirkadka iyo macaamiishu xuduudda kala leeyihiin shirkadii layna keentay baalis oo istaajis customerku wuxuu keensaday fiilo iyo saacado keensaday waa loo xiray shirkadu halkaas ku egtahay shirkadu guriga ma dhex joogto dabki ma isticmaasho ma kontaroosho kama warqabi karto guriga wax ka dhex jira qofka isticmaalaya isaga laga rabaa in maadaama koronto shay khatar tahay inuu badbaadada ka taliyo oo sidii loogu talagalo isticmaalo hadii marka ayada khalad laga galo wax walba oo khalad laga galo dhibaato keena tusaale hadii daawo inta lagu soo qoro adoo daawo lagu soo qoray inaad ku caafimaado aad si qaldan u isticmaasho waxa dhacayna ku dhimato marka korontada sax loo isticmaalo problem keenaysa laakiin hadii qalab qaldan loo isticmaalo si qaldan loo isticmaalo fiilada fiiqan laga tago dabcan in wax dilayso shako kuma jiro ama ay wax gubi karto marka waxaan leenahay horta waxyaabaha guryaha guba ma ahan koronto kaliya inta badan koronto kama kacaan waxa jira factors badan oo keenay bal horta aan dib ugu laabano laftiga taxadirka aan badan insha Allah